bank markaan maqashiin waxaad isla markii madaxayga ku soo dhaca horumar dhaqaale iyo amni oo ku xiga dhaqaalaha ayuu sare u qaadayaa bangiga markii lacagaha la dhigto saad la socotaan dhaqaalihii markii banuugta la dhigto lacagihii bannaankay aadaan sida hadaayay aan ka arkayay presentationka waxa ugu horeeyay dhulka iyo dhismaha waxa ku xigay ganacsiga bannaanka laga keeno waxa ugu dambeeyay beeraha oo gabadha walaashay ka hadasho oo aad u liit xagga maalgashiga waa run dhaqaalaha bangiyada la dhigto waxa ugu horeeya oo lagu keedsadaa waa dhul sababtoo ah dadkii waxay rabaan meel ay waxoodii ku ogaadaan ama ay ku aaminaan saa darteed waa muhiim inaan banuug leenahay lacagaheena lagu aamino lacagahaas la dhigto sida aad la socotaan inta ugu badan wiilkii hadlayay ama Turkiyada ha aadaan ama China ama India lacagtii waa la qaadaa raashin iyo badeecado kala duwan lagu soo gadaa lacagihii bannaanka ay aadayaan Soomaan laakiin dalka lacagaha soo galaya aad ay u yaryihiin waxaan rabaa inaan ka codsado milkiilayaasha bangiyada oo dhowr aan halkan uga jeedo kala duwan in lacagaha la geliyo beeraha xoolaha waxaan walaalkay Cabdullaahi iyo tiimkiisa My Bank ku boorinayaa in dhaqaalaha lagu kobciyo la garab siiyo dadka beeraha noogu dhow Afgooye iyo Balcad 30 kilomitir ka yar noo jiraan qalab ma haystaan wax soo saarka oo lagu wax soo saaray ma haystaan sidaa darteed waxaan ku boorinayaa inay xoog saaraan in beeraha iyo xoolaha kalluumaysiga wax la geliyo sababtoo ayaga ayaa ah kuwa haddii bannaanka loo qaado dib waxayna noogu soo celin lahaa waxna aan ka faa'iido lahayn marka taas ayaan ku boorinayaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga faa'iideysto 8 banki ayaa hadda jirta saddex soo socoto waxay noqonayaan 11 bangiyo caalami ah ayaa jira iyagana inay yimaadaan oo si toos ah noola soo xiriiray bangiyadaas caalamiga ah waa Turkiya iyo Misr Egypt haddaan dalka keenno ma la jaan qaadi karaan saaxiibadeen 11ka bangi way adkaanaysaa Soomaan waxaan leeyahay bangiyadeena iyagana inay isku tagaan ay xoogeystaan gacan isisiyaan waa ku wanaagsanahay shakhsi marka naloo fiiriyo inaan wax qabsanno ama aan horumarkeena ka fikirno laakiin inaan isku tagno aad ayay noogu adag tahay marka arinta aad uga faa'iideysta haddaan rabno inaan caalamka la jaan qaadno sidii aad ka dhawaajiseen Bangi di Roma Bangi di Napoli ya bangiya imaanayo wadankiina horumar la rabaa in la maalgashtaa la rabaa haddaan kuwaas u yeerano Turkida iyo Masaarida iyo wadamadii kale soo abrooj gari ama naga soo dalbada oo haddaba gacanta lagu hayo waxa adkaanayso bangiyadeennii inay la jaan qaadi waayaan marka isku daya inaad midowdaan xoogaysataan oo hal wajah aad abartaan taas waa waanadayda waxaan rabaa fursadan inaan My Bank ay ka faa'iideystaan maanta ducata la dalka oo ah abaar xun ayaa dalka ka jira meel kasto hadda halkan waa ku daahay golaha wasiiradeeda qaar kamid ah ayaan la balansanahay sidii aan u wajihi lahayn sidii looga hortagi lahaa abaarahaas My Bank oo Cabdullaahi oo Nuure waxaan talo ku siinayaa inuu maanta hormuud u noqdo fursadan uga faa'iideysto sidii biyo dhaamin iyo tabaruc loogu geysan lahaa dadka ee abaaruhu galaafeeyeen ugu horeyso Jubbaland South West-ga Galmudug dhulkaas oo dhan abaar adag ayaa ka jira waxaan kaloo rabaa halkan in uga faa'iideysto insha Allah saacadaha soo socdo markaan wasiirada la kulmo waxaan isugu yeerayaa ganacsatada iyo culimada diinta oo aan kala hadli doono sidii abaarahaas loo wajihi lahaa abaaraha hal la wajaho laakiin waxaa ka sii daran waqtiga oo aad noogu adag oo waqti doorasho ah maanta waa November lagu jira December abaartu way sii jiraysaa sida ogtihiin 3 bilood oo adagna waa ku xigtaayo January iyo February iyo March waa ku celceliyaa dhowr jeer waa jiilaalkii abaartana way sii dheeraanaysaa marka haddaanan annaga qorshe la imaan oo adag haddii ka dawlad ahaan dawladana waa dadkii iyo ganacsatada iyo shacabkeedii kama maaranto waxaan idinka rabaa inaan gacmaha isqabsano u diyaar garowno
sidaan ugu gurman lahayn dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee abaarahaas ay waxyeeleynayaan. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga saaro abaartan. ilaaha gacan weyn gacantiisa uu nagu badbaadiyo hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. waxaa idin leeyahay mar kale hambalyo aan doorashana aan gacan ku wadno, gacanta kalena aan abaaraha kaga hortagno. aad ayaa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.